warsaaf media oo kala socotaan bartayada aan ku leenahay YouTube-ka ama channel-kayga YouTube-ka wararkan maanta idin hayno waxa kamid ah Ilhaan Cumar oo lagaga mudaharaaday shir ay kaga qayb galaysay magaalo ku taala gobolka California oo ay lahaayeen ururka muslimiinta dalka Mareykanka ama CAIR loo yaqaano shirkaas oo sanadkiiba mar la qabto oo bilad lagu guddoonsiinayay lacagna loogu ururinayo ururkaas oo difaaca xuquuqda dadka muslimiinta ah ku nool wadanka Mareykanka. arrimaha kale aan idin hayno waxaa kamid ah shirkii ganacsiga u dhaxeeyay wadahadallada ama gorgortanka ganacsiga u dhaxeeyay Mareykanka iyo Shiinaha oo la isku mari laayay ilaa hadda inkastoo guulo yaryar uu muujiyay madaxweyne Trump oo uu kaga gacan sareeyo wadanka Shiinaha. arrimaha kale aan idin hayno waxaa kamid ah xusul loo sameeyay ama baroordiiq loo sameeyay dadkii lagu xasuuqay masaajidadii ku yaalay magaalada Christchurch ee wadanka New Zealand iyo masaajidadii oo dib loo furay. arrimaha iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan warka maanta dhageystayaal waa warsaaf media oo kala socotaan bartaan ku leenahay YouTube-ka. aynu ku bilownaa dad ilaa 200 oo qof gaaray ayaa ku mudaharaaday xubinta Congress-ka laga soo doorto gobolka Minnesota ee Ilhaan Cumar. dadkaasi oo xidhnaa koofiyadaha lagu yaqaan dadka taageera madaxweyne Donald Trump isla markaana sitay board ay ku sawiran yihiin madaxweynaha wadanka Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha wadanka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxay ku dhawaaqeen hadallo nacayb ah oo ah in Ilhaan xilligii ay iska tagi lahayd la gaaray Congress-ka wadanka Mareykanka aan looga baahnayn nacayb iyo waanu difaacina Israa'iil iyo shareeco loogama baahna halkan ee la tag hadallo nooca kamid ah ay ku dhawaaqayeen dadkii halkaas ugu soo baxay. dad tiro yar oo muslimiin ah ayaa ka soo horjeeday oo iyaguna mudaharaad ay kaga soo horjeedaan dhinaca kale ka taagnaa wadada iyadoo isla mar ahaantaana ay ku dhex jireen ciidamada fara badan oo booliis ah oo ah ciidamada deegaanka Woodland Hills loo yaqaano halkaas oo Ilhaan ay kaga qayb galaysay shirka sanadlaha ah ee ururka CAIR ama ururka u dooda xuquuqda dadka muslimiinta ah ee wadanka Mareykanka halkaas oo lagu guddoonsiiyay bilad isla markaana lagu magacaabay shakhsiga sanadka ee u ololeeya xuquuqda dadka dulman. Ilhaan oo ah mudanihii ugu horeeyay asalkiisu Soomaali uu yahay ama muslim ah ayaa waxa loo soo doortay Congress-ka iyadoo laga soo doortay gobolka Minnesota. khudbadii halka ka jeedisay waxay sheegtay in xilliyadii hore ay biqi jirtay laakiin haddeerto isku duubni dadka Mareykanku ay muujinayaan ay ku difaacayaan dadka muslimiinta ah isla mar ahaantaana siyaasadaha uu wado maamulka madaxweyne Trump ay yihiin kuwa aan socon doonin aana la mamnuuci doonin imaatinka dadka muslimiinta ee wadanka Mareykanka. qaxootiguna ay mar walba yihiin dad lagu soo dhaweynayo wadanka Mareykanka. Ilhaan Cumar oo ah mudane ka tirsan Congress-ka ayaa waxa lagu eedeeyay in ay ku hadashay hadallo dhanka ah jiritaanka dadka Yuhuudda inkastoo arrinka beenisay marar badan ayna sheegtay inay ka soo horjeedo siyaasadaha uu ku dhaqmo maamulka ama dawladda wadanka Israa'iil ee lagu cadaadiyo dadka Falastiiniyiinta ah. dad isugu soo baxay halkaas oo ku mudaharaaday Ilhaan ayaa waxay sheegayeen inay xaq tahay in Mareykanku uu difaaco mar walba garabna uu istaago dawladda Israa'iil. dhanka kale dhageystayaal xus loo sameeyay dadkii faraha badnaa ee lagu xasuuqay masaajidadii ku yaalay wadanka New Zealand ayaa waxa lagu qabtay magaalada Christchurch ee wadanka New Zealand. xuska loo sameeyay dadkii lagu laayay masaajidada gaarayay ilaa 50 qof ayaa waxa ka qayb galay dad badan oo halka u baxay dhigay iyadoo masaajidada oo ay gacanta ku hayeen booliiska baarayay dambiyada ka dhacay halkaasna dib loo furay oo lagu wareejiyay dadkii muslimiinta ahaa. xasuuqa ay ku dhinteen ilaa 50 qof ilaa 20 ay ku dhaawacantay ayaa waxa geystay nin xaq jir ah oo cunsuri ah oo nacab dadka muslimiinta ah isla mar ahaantaana ka soo horjeeda dadka soo galootiga ah ee imanaya wadamada reer galbeedka. ninkaasi oo xasuuq ka geystay wadanka New Zealand ayaa waxa uu ku xarday qoryihii uu sitay dadka ku leeynayay magacyada dad hore u xasuuqay dad madow ah dad soo galooti ah iyo dad muslimiin ah. inkastoo wadanka New Zealand uu kamid yahay wadamada ugu furfuran reer galbeedka isla markaana ah dad soo dhaweeya soo galootiga ayaa uuna u dhalanin ninkani wadankaasi New Zealand oo ahaa nin isaga laftiisu soo galooti oo ka soo talaabay dhinaca wadanka Australia. ninkaasi ayaa hadda xidhan oo la baaraya dambigiisa lana horgeeyay maxkamad mar isla mar ahaantaana la doonaya in lagu soo ogo dacwadda dilalkii uu ka geystay halkaasi.
dhanka kale dhegeystayaal, wadahadaladii u dhexeeyay wadanka Mareykanka iyo dalka Shiinaha ee ku saabsanaa ganacsiga labada dal ayaa la isku mari laayahay, inkasta oo wadanka Mareykanku uu ka dhaadhiciyay wadanka Shiinaha inay iibsadaan badeeco badan oo in ka badan inta ay hadeerto ka iibsadaan, isla mar ahaantaana ay u furfuraan suuqyadooda badeecadaha ay soo saaraan warshadaha iyo kambaniyada technology-ga ee wadanka Mareykanka. waxaa hoos u dhacay badeecadii uu Mareykanku kala soo degi jiray wadanka Shiinaha oo ay ugu badan tahay xadiidku ama birta. wadanka Shiinaha ayaa waxa uu ogolaaday in waxyaabo badan oo cusub uu ka iibsado sanadkan 2019 wadanka Mareykanka, isla mar ahaantaana uu diiday oo uu ka soo horjeestay arrimihii uu watay wadanka Mareykanku uu ku doodayay ee ahaa in laga qaado shuruucda adkeynaysa in kambaniyada technology-ga sameeya ee wadanka Mareykanku ay ka howlgalaan wadanka Shiinaha, isla mar ahaantaana la adkeeyo siyaabaha loo xado farsamooyinka ay hindisaan kambaniyada sameeya technology-ga sida kombiyuutarada, telefoonada, software-yada iyo wixii la mid ah ee wadanka Mareykanka laga leeyahay. heshiiskan ayaa haddii uu madaxweyne Trump uu ka dhaadhiciyo wadanka Shiinaha in ay bedelaan waxyaabaha dheeraadka ama lacagta dheeraadka ah ee Shiinuhu ay ka helaan waxyaabaha ay u soo dhoofiyaan wadanka Mareykanka, isla mar ahaantaana isu dheelitir lagu sameeyo waxyaabaha ay isu dhoofiyaan labada wadan, ayaa waxay guul u noqon doontaa doorashada soo socota madaxweyne Trump, oo ay ka mid noqon doonto waxyaabaha uu ku doodayo inuu Shiinaha kaga adkaaday in ay joojiyaan ganacsiga halka dhinac lagaga faa'iidayo ee uu Shiinuhu faa'iidada faraha badan ka helayo, Mareykankana aan waxba ka soo galaynin. laakiin arrinka meesha yaalla ayaa waxa uu yahay in madaxweyne Trump uu yahay nin sharciga Mareykanka marka la eego aanu ka badnaan doonin intuu xukunka haynaya muddo 8 sano ah oo 2 jeer oo la soo doorto, halka wadanka Shiinaha madaxweynaha haysta uu yahay nin inta uu doono xukunku uu sharcigu u ogolaan inuu xukunka hayo, isla mar ahaantaana uu dowladaha dambe ee Mareykanka la sugi doono inuu ka dhaadhiciyo in heshiisku sida uu hadda yahay uu ahaado, ganacsiguna sida uu hadeerta yahay uu ahaado. haddii Shiinuhu ay ku sii adkaystaan ama ka madax adeegaan waxyaabaha uu soo jeedinaya Mareykanka, ayaa waxay guul darro ku noqon doontaa madaxweyne Trump oo la doorashada ee soo socda sanadka 2020.